Asalaamu calaykum walaalahayga aad u jeclahay soo dhawaada. Maanta waxaa idiin wadaa baasto oo lagu daray tomaat ama yaanyo saa u taqaanid iyo basilikum iyo cheese la dhahayo feta cheese. Marka waa baasto aad u macaan. Marka saan oo kale u samaystid insha Allah waan aad uga helay. Idinkana waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin. Marka insha Allah daawasho wanaagsan. Waxa waaye recipe from TikTok aan ka arkay marka insha Allah waxaan jeclaan inaad la qaybsado. Waxa waaye maasha Allah waan tijaabiyay. Maasha Allah amazing. Adinkana tijaabiye insha Allah. Marka daawasho wanaagsan. hadii ilaa yara waxaan kaloo idin qaybsanaa maanta pizza, homemade pizza sida loo sameeyo guriga loogu sameeyo. Hadda cajiinkii aan qasay amsura ka xuma idin la qaybsanaysa u qasayay because anoo qasay waxa igu soo dhacday inaan idin duubo oo si u sameynayo. Marka waa kaas xitaa dhaqsiyan maxay ahayd aan sameeyay cajiinkii halkaasna dhigayaa oo ilaa uu ka qamiiro ilaa qudaartii waxa si diyaarsanayo uu qamiira already wuu qamiiray waan fidiyay dad badan arkay oo fargeetada saas ugu sameynayo waan tijaabiyay xabad sidaan oo kale ah fargeetada aan ku sameeyay iyo xabad kale tan kalena waan tusnaa insha Allah waa xabad balaaran tan waa nooca oo circle ah. marka insha Allah foornada sii gelinaya wax yar markii uu cajiinka wax yar aan siraado maxay qoyaanku ka baxay cajiinka macnaha aan korka maxay topping korka saari doona insha Allah waxyaabaha ugu talagalay waa basal gaduud waa hilib waa chicken jirta mushroom iyo barbarooni oo saddex nooc ah insha Allah iyo cheese oo kala nooc ah. marka waa kana saxanka ku sameynaa saas uu egyahay. waxaan kale ku sameynaa yaanyada xitaa waan tusina insha Allah yaanyada dhalada ku jirto nooc aysta ku sameyn kartaa basal cad mais maxaan ku dhahaa waa kuwaas waxyaabihii aan ugu talagalnay ku sameeyay insha Allah daawasho wanaagsan. marka mostly anaga biisada aad gurigan looga jecel yahay weegi mar aan maxay ahayd biisada la soo gadaa ama waan sameeyaa ilaa maalinta jimcada on Friday pizza la dhahaa. marka mid aan soo gadanana waa inta doona dhowr nooc aan maxay ahayd dhowr meelood ka soo gadanay laakiin midda hadda aad u jecelnahay aan soo gadano waan ku soo insha Allah daawasho wanaagsan ayadana waan ku jirtaa video gadaal xagga dambe. marka si fiican u daawo marka midda guriga lagu sameeyo maasha Allah inaba caadi ma ahan aad uga helay adinkana waxaan rajaynayaa ka heli doontiin carruurtana aad u jeclaysiin maasha Allah familka dhan way ka heleen. marka hadda yaanyada korka uga daraya insha Allah maxaa dhihi jiray marka ha ka badin yaanyada hadaa ka badisid maxay ahayd waxa qarinaya meeshii dhan marka maxay dabka xitaa ma qaban hadhow si maasha Allah ku soo bixi hadhow marka korka saas yaanyada uga maysku bilaawdid after that waxa ku xijinayna marka haduu ilaahay marka yaanyada marino cheese-kii aan dusha sare ugu dareyna haduu ilaahay waa saddex nooc oo cheese ah adi laba nooc isku eg iyo nooc kala gooni ah. marka insha Allah marka step by step aan tusina haduu ilaahay daawasho wanaagsan insha Allah hadda waxa ku dareeyaa cheese-ka ku dareeyaa topping-ka kor uga daadinaya marka insha Allah maasha Allah caadi ma ahan. marka xitaa saakada ay ugu jirto banaanka uga imaaday anoo markii imaaday carruurta xidhan hooy caawa casho inaa biis nooga dhigtaa biisa aad u jeclaysanay inaan ku casheeno marka saas inaan sameeyo biisada. marka haddii maxay ahayd ku cajiibsan insha Allah tijaabi adigana waad ka heli doontaa insha Allah hadii la yiraahdo. marka hadda waxaan ku darayaa hilibkan dusha uga darayaa marka maxay ahayd waxaan ku darayaa basal gaduudi aan dusha sare uga darayaa marka maxay ahayd iyo waxaan kale kor uga darayaa mushroomkii aan dusha sare uga darayaa marka maxaa la dhihi jiray maiski aan dusha sare uga daadinayaa video waan duubay codka waa dulsaar hadda dulsaaray hadii la yiraahdo basasha cadeed aan dusha uga daadinaynaa. marka insha Allah saakada hadda geesir ka taabatay dhibaato ma lahan nadiif waay dharka babrik aan ku daraa barbaroonigi aan jarjaray oo dhaqan oo nadiif ah aan dusha sare uga darayaa marka waa kaasa. marka mar dhow waxaan gelinaynaa cheese korka uga sii olive uga daadina marka horeete then waxaan sameeynaa maxay ahayd waxaan sameynaynaa foornada marka u diyaarinta cheese korka uga daadiyo aan foornada gelinaynaa insha Allah
daawasho wanaagsan bilaaw ilaa dhammaad daawo insha allah waad ka heli doontaa hadduu ilaa yiraahdo. ani hadalka kuma fiicni inaan hadlo ma jecli, laakiin I try my best. badan ay ka soo codsadeen oo ay dhaheen markaa cuntada soo gelinaysid ama waxyaaba nala sheergaraynaysid please waxaa jeclaan lahay inaad soo hadashid. marka I try my best guys. wixii qalad ah insha allah ka raali noqda, igu qaata. marka xabadii kale waa tana ee labaad, the second one aan sameynaa hadda insha allah. tii kale way ku jirtaa foornada intaan. marka tan hadda already wixii korka the same aan korka uga daadiyey, marka maadaama ma ii tusinin, laakiin hadda insha allah mar dhow ayadana gelinaa marka tan kasoo baxdo. marka maasha allah wallaahi caadi ma ahan. tan foornada ma gelinin markeeda hore, cajiinka sidiisa waa ujeedaan. tan kale laakiin wax yaraan foornada geliyey 2-3 minutes dan waa kasoo bixiyey. adiga foornada seetay ku xiran tahay 250 aniga geystay. marka maxaa la dhihi jiray 250 aniga geystay foornada. marka insha allah waa kasoo bixiyey xabadii ugu horeysay waan kasoo bixiyey. tii labaad ah hadda gelinayna insha allah. maasha allah caraftaa kasii daran macaan maasha allah, aad ay u carfaysa maasha allah. waa iska dhargeysaa marka maxay ahayd ay kusoo carafto caadi ma aha maasha allah. wow, it's very amazing really. idinkana waxaa rajeynayaa inaad tijaabisiin ama aad baroweysaan sida u taqaanaan, dhadhamisaan insha allah. ila soo sheergareeya sida ay idiin noqoto hadduu ilaahay raali ka noqdo. marka caadi ma ahan wallaahi maasha allah. waa taasaa anigoo jarjaray carruurta u diyaariyey. tan la soo gadana waa taasaa oo ujeedaa maasha allah. every Friday base waa guriga caadi ma ahan. marka maasha allah noocaas waa noocaan soo gado maalin walba oo jimco ah hadduu ilaa yiraahdo. waa taasaa.